Eng.Ali Axmed Guuleed oo ka mid ah aqoonyahanada qorbo joogta ee ka soo jeeda gobolka G.Awdal oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn ula socday xaaladda gobolka G.Awdal oo ugu weyneed dhacdadii foosha xumeed ee xukuumadda Soomaaliya la isku hortaagtay in Ugaaska gudaha B.Gadabuursi Ugaas Roble Ugaas Doodi uu gudaha u soo galo gobolka G.Awdal ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay arrintaasi waxaana uu sheegay in dhacdadaasi ahayd Talo baahsan oo ka timiday Lataliyayaasha Ugaaska oo intooda badan ah dad ku nool qurbaha isla markaana aanan u dhuun daloolin واقع دبتها وقت حاضر كان يكتشره جذها قبل كأوضل. Eng.Ali أحمد قولي على الجهاد يصدق كل واحد وستو تاجي إن إماتك Ugaaska كهر ولا تشبران أول السمية لسلقرتي إن لقونا أكسية هنا وقت حاضر كان Ugaas عبد الرشيد ما دق قبل كأوضل وصدق هذا الكود جاي صوب الحيرة حالتها السياسية كألوسون قبل كان أوضل وحنا وقدمت Eng.Ali أحمد قولي وشجعي الحمد كتب من دلة الياش Ugaaska أنا مرة قررت لو قلين كرين شخصيات مقعي ماموس وين كله قبل كان أوضل. Eng.Ali أحمد قولي على الجهاد وأرماسي كهالليا واحد اللي يسي كمدها وحن ما أنت جعلها إنان بل وحير عادك كقاضي دعدي فوش حميد مالين تيدوي كدعدي وريعول كل دعدي Ugaaskeena Ugaas عبد الرشيد Ugaas روبله شخصي بني آدم هو ناقص قف شرف لعز إيه ماموس آد محترم وين ندبتي أرنتاسي راد حمينا وربتي أرنتاسي وين الدماغ أرنتاسي أرن آد وددنهم أيونا ونقول أرنتا إماتك Ugaaska وحلقة حضلي إن أنكيرين طبعا أفر أسبوع يا لقى حضلي انت waxaa la golfeeyay la qaadaa dhigay la isla eegay maanta khilaafaadka taagan ee ka dhex jira beelaha ku nool gobolka Awdal beelaha Gadabuursi miyay maanta ku fiican tahay Ugaas dhaqameedkeeni inay arrintaasi noqoto arrin siyaasadeed miyay qurux badan tahay maanta in Ugaaskeeni sharaftu kaga dhacdo arrin yar oo jirta waana la isku wada raacay waa la isku ogolaaday inuu Ugaasku maanta ka joogo xaaladda ka jirta gobolka awgeed inuuna Ugaasku imanin waqtigan yaa ka dambeeyay barnaamijkan imaatinka Ugaaska برنامجك إماتنك Ugaaska waxaa ka dambeeyay guddiga fulinta ee Ugaasku waa dad ku nool qurba wanidan London jooga waa dad London ku nool oo wax allaale waxay aqoon iyo garasho u leeyihiin marxaladaha maanta ka taagan gobolka anan ka waray waxa maanta dhacaya anan la socon go'aamada la gaaray ee la isku raacay waxa weeye way ka daba mareen waxay goosteen in barnaamijka ay wataani marna dib uga dhicin oo Ugaaska la soo galay war Ugaasku waa Ugaas beelad waa Ugaas aanan ahayn Ugaas reer Ugaaska Lataliyayaashiisu waa markii saddexaad ee ay Ugaaska u horseedaan dib noocan oo kala ah dib foolxun oo aan laga fikirin Ugaaska Lataliyayaashiisu hadday noqon waayaan Ugaaska beesha hoos timaada dadkiisa oo aqoon u leh dalka iyo dadka فالحمداني ما دمانيسو وان سوغينا wax badan waxaasoo dhan ka sii dhib badan dadkii geystay dhibaatada noocan ah ee Ugaaska u horseeday in sharafti laga hayoobiyo maantana wada damqaysa dadkii falka geystay ayaa maanta waxay rabaan ficilka ay ku kaceen inay qoorta u suraan dad sharaf leh cisi iyo maamuus leh oo aan siyaasadda ku jirin wax allaale waxaan ka ahayn fikradooda caadiga oo ay kala siman yihiin beesha oo awaryaan Ugaasku waqtigan imanin ayaa maanta qoorta loo gelinaya
oo la leeyahay qaladka iyagaa sameeyay war niman yahow fallaari gilgilasho idinkaga fuqi mayso war niman yahow wax aad ku kacdeeni waa wax kala jabiyey ummadan waa wax fal xun ah waa wax tala xumo ah waa wax aan dhammaantayo na gubaya hase yeeshee yaanan ku galgalanin oo aadan hadalkiinu noqonin mid propaganda oo dhisaya oo u geysanaysaan dad aan wax allaale wax shaqo kula yihiin